waa dharaar u gaara reer Muqdisho. waxaa rumowday rajo muddo la naawilayay matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir kadib markii golaha shacabku ansixiyeen inay 13 xubnood ku yeeshaan aqalka sare. dibadbaxayaashan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa soo tubay afaafka hore ee taalada daljirka Dahsoon ilaa xaruntii hore ee baarlamaanka, waxayna dalbanayeen in la dhameystiro ansixinta matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir taasi oo ka soo gudubtay golaha shacabka. dibadbaxayaashan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay uga mahadceliyeen soo jeedintiisii ahayd in gobolka Banaadir uu matalaad ku yeesho baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka. oo waxaan ku taageersanahay baarlamaanka go'aankii ka soo baxay gobolka Banaadir xubnaha laga siiyay anigoo ku taageersan gobolka Banaadir hambalyo baan idin leeyahay baarlamaankan hambalyo kuusha oo maanta oo gaar gobolka Banaadir aad ayaa ugu faraxsanahay waayo waxaan ka qabnaa ballanqaad weyn oo ilaahay baa weyn ku faraxsanahay oo ka sugayna gobolka Banaadir inuu noo oofiyo in madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolka Banaadir waxay ka dhigantaa si weyn oo sharaf badan oo wanaag badan ayaan u soo dhaweeyaynaa muddo badanna u oonay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waa uga hambalyeeyahay guud ahaan waxaan uga hambalyeeyahay dawladda. xildhibaan Caasha Koos Maxamed oo ka mid ahayd mudanayaal ka tirsan golaha shacabka oo ka qayb galay banaanbaxa ayaa sheegtay inay dadaal badan ku bixiyeen inuu maqaam yeesho gobolka Banaadir. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa tilmaamtay in matalaadda gobolka Banaadir ay keeni karto in shacabka dib loogu celiyo codkooda si ay u soo doortaan madaxda caasimadda Muqdisho. duq magaalo iyo maayir la soo magacaabo waxaan ka bixi doonaa gudoomiye degmo oo ayadoo la wada degmo la geeyo ayaan ka gudbi doonaa degmada lagu dooran doonaa kadibna maayirkan dooran doonaa insha Allah. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, baarlamaanka Soomaaliya ha guuleysto. dadkan iyo kuwa kale muddo ka badan 20 sano ayay ku hanweeyaanayeen magaalada Muqdisho inay maqaam ku yeelato dowladnimada Soomaaliya gaar ahaan golayaasha sharci-dejinta iyo fulinta. balse baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay ogolaaday in ay xubno la yaqaan ku dhex yeeshaan kuwaas oo 13 xubnood oo ka mid noqonaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.